صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وساعة الخانفور كنا جرير بيسو ضدكنا ودارين بان ملينيا marka hore hablaha iyo ragga iyo dhalinyarada waa salaamaya saxaafadana si weyn baan u salaamaya shirku ila saabkino socday qodobadii muhiimka way dhamaadeen wixii aragtay nagiina maqlaan oo wada maqasheen anigu gudmar ma sameynaya iyo gunaanad waan ma hadlaya shirgudoonka ay noo daadinayay shirka waxay u maqaalaa saxaafadda baan moodi jiray inay basaasiin leedahay wala saakiina la joogto malaa basaasiin waxaa la yidhi shirku waa lagu kala tegay bay yidhaahdeen waxaan idiin sheegaynaa hadda waa saddexdii oo weli shirku u socdaa arrimaha doorashada waxaa u xil saaran oo ka mas'uula farsamo ahaan guddiga doorashooyinka qaranka laakiin xilka qabashada doorashadu wuxuu saaran yahay madaxweynaha waxaan jecelahay inaan dhowr taariikhood iyo wixii la soo maray halkay inoo maraysay isku dayga doorashada iyo diiwaangelintu aan soo koobo doorashada maamulkeeda iyo qabashadeeda waxaa ka mas'uula guddiga doorashooyinka qaranka ilaa 2013 waxaan ka wada shaqaynaynay in diiwaangelin la sameeyo dabeedna doorasho la sameeyo waxaynu ku guuleysanay tacab dheer kadib 22 July 2015 in la mudeeyo inay diiwaangelintu bilaabanto madaxweynuhu dekreeto ku soo saaro waqtigaas guddiga doorashooyinku waxay qireen farsamo ahaan inay qaban karaan doorashada December 2015 waa sanadkaynu ku jirno farsamo ahaan waxay qireen inay doorashada qaban karaan December 2015 hase yeeshee waxay tixgeliyeen xeerka diiwaangelinta oo tilmaamaya in 6 bilood kadib markii la qabto diiwaangelinta la qabto doorashada sidaa daraadeed ayay uga dhigeen in doorashada ay qabtaan 1 June 2016 intaanay ku dhawaaqin waqtiga waxay u tageen markii hore madaxweynaha dabeedna waxay u tageen xisaabta dabeedna waa la isla wada ogolaaday dabeedna way ku dhawaaqeen dabeedna madaxweynuhu dekreeto soo saaray waa markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliland intaan joogay oo ahayd intii doorashooyinku ay qabsoomeen ay xisaabta iyo xukuumadda iyo komishanku ay wax isla waafaqaan waxay ahayd heshiis ummadeed hase yeeshee waxa dhinac socday madaxweynuhu uu gudbiyay guutida in waqtiga lagu heshiiyay ay waajibkooda ka gutaan golaha guurtidu hase yeeshee waxaan qarsoonayn in ilaa 2013 isagoo aanay dhammaan madaxweynaha muddaxileedkiisu uu ka shaqaynayay in 2 sanadood ilaa 4 sanadood loo kordhiyo suuqaynu ka wada warhaynay odayaha loogu daro tiifiyadaynu ka wada warhaynay 2 sanadood ugu dambeeyay way ka socotay anigii madaxweynuhu maxaan ku kala duwaneen annaga waxaan doonayay inaan kursiga ka kaco oo doorasho la qabto oo kursiga iyo baarlamaankaba la baneeyo isna wuxuu ka shaqaynayay isagoo kursiga ku fadhiya inuu ka shaqeeyo inuu 3 sanadood kala sii kororsado ama 2 sanadood walaalihi guurtidu way xishootay guurtidu way xishootay markay 2 sano kordhinaysay marka madaxweyne waxay la tahay hadii kursigu taariikhda la sheegay muddaxileedkiisa maanta ku dhamayd si kursigiisuna xalaal u noqdo kayguna xalaal u noqdo in kastaa iskaga sii socdaba waxaan la madaxweyne de maanta ku hadhay maanta doorashadii ku dhawaaq hadii kale adiga iyo aniga iyo Salaam Maxamuud Aadan baan ummadda kuraasada u banayno muddo kordhinta axsaabtu way ka digaysay
ilaa 2300 baanu ka digaynay beesha caalamku way ka digtay intaanay guurtidu kordhin muddo kordhinta waxay u yeedhay xisaabta waxaan ugu tagnay 40 golaha guurtida waxaan ku niri waqtiga lagu heshiiyey ee commissionku uu cayimay ee xisaabtu ogolaatay ee madaxweynihii ogolaaday ayaanu soo jeedinaynaa intaas inay kordhisaan labada xisbiye waddan iyo cid baa isku raacay sidaas waxa naga duwanaa kulmiye oo yiri inta doontaan ka dhiga tii kulmiye bay raacday guurtiisa xukuumaduna korna waxay lahayd waxaan raacsanahay waqtiga commissionka hoostana hawlo kale ka waday oo ka wareysay waxaan leeyahay guurtidu inaanay dambi lahayn laakiin waxa qabaa hawshaasi muddo laga shaqaynayay oo lagu ijbaaray bay ahayd guurtida dadka noqoshadeedu way ku adagtay guurtida muddo laga shaqaynayay 2 sano ilaa saa sameeya oo haddana laga saacad gudaheed kaga noqda waxaa kaloo ii sheegaya marar badanna waa lagu celceliyey sababta ay guurtidu u cuskatay muddo kordhinta ma aha ku waafaqsan shuruucda iyo dastuurka sababtoo xaaladaha la baneeyay midna ma jiro dalku ma abaar ku jira ma dagaal ku jira ma dhulgariir baa jira ma daacun baa nahaya kuwaas u fasaxay dastuurku waxaan ii sheegayaa in asbaabta loo cuskadayna aanay jirin heshiiskii ummaddu ku heshiiska ahaydna lagu bedelay in khilaaf uu abuurmo maxay xukuumaddu yeeshay in khilaaf abuurmo bay qaratay haddaanu kumanaa khasbin shacbigay u qaratay beesha caalamkay u qaratay waxay dhahaan khilaafkii ka dhashay golaha guurtida muddo kordhintiisa ayaanu gogol u dhigaynaa hadda gogol dhigan maanaan odhan idinkuna kumaydaan odhan maxay ula jeedeen haddaba muddo kordhintaa gogosha ay dhigeen annagu waanu aqbalnay waxaa ka soo baxay sanadkii commissionku naguma fillee waxoogaha naloogu daro waxaan hadday ku tegayso ha loogu daro waas lahayn dee way sharciyeyn doontaa intii ilaa maanta maalintii aanu fudafadhinay guriga saylici madaxweyne ku-xigeenka xisaabtu musabixi wuxuu 24 saacadoodna siiya aanu guurtida ka soo dhammaynay maalinta 60 maalmood imanaysa miyaanu sabir yarayn miyaanu dulqaad yarayn maxay naga doonayaan markaasay naga raadinayaan waxayna tahay waa 26 July madaxweynihii madaxweynaha barito ayay ku eg tahay waxaan la madaxweyne mar labaad si kursigaaga iyo kaygu sharci u noqdo hanu diyaar baan hay waliba inaad waqtigii doorashada ku dhawaaqto wasiirada وأسلحة ملا بابا من ودي قف الرئيس سوق هذا يلو جوابي ما أنت نكى فريما لقى سوق هذا يمدحونا شموليد السؤال لان بحضلي بتروح كوين بكفيلي لكن أنت وسيرة ينو سوق هذين أيوم وناشر وهي نقولي قلت أنا كنا ندرهنا هنا متاسع الشعب كاسبي مدحوي وهي كاسبيين قوان كاكدون قلت إذا ولي وكسر ندرهنا يا وحنا شيء يا كانوا أكتين أنت طبيعي الله عطاك بشي شناب أنت أنا هشيت كسرحين صلاة دي مغربة يقول طيان قصر جنب مدحوينها لما ساعدوا بالفرديين وأنا نقول كسبيين منصور لما ساعدوا كذب وقلت له شافتي مدحوينها وأنا كي قرن كوسري إنا يقوان كي وحبك بدلين عدتي سنة قبلين
markay madaxweynaha oo weliba lagu yiri markii hore madaxweynaha arkaysa laakiin asii malaad go'aankaasu ka cawaadan habeenkii isla qasrigii madaxweynaha anagoo fadhina saddexdii xisbi iyo xukuumadii iyo madaxweyne ku-xigeenku ayay guddigii noo yimaadeen guurtida oo mudane Salmaan Maxamuud Aadan hogaaminaya iyagoo isu dhan shirgudoonkii iyo odayaashii ayaanu nahay ergaan udiin nahay axsaabtii iyo xukuumadiiba waxaanu doonaynaa heshiis baanu doonaynaa inaan saxeexno muddaanu soo jeedinay naga aqbala waxay ka aqbali mayno marka waxaan isweydiiyey Salmaan markuu ka soo baxay madaxtooyada subax shir jiraad bay qabteen waxba ka bedeli mayno yiraahdeen waxaan isweydiiyey guurtu cusub baan iga sameeyay horta misawakii hore afhayeenna way samaysteen dad ku qorayd xukuumadda iyo xisbiyada gorgortan kala geli mayno yiraahdeen arrintan muddo marka waa garan waayo waxaas guurtan 24 hours kale waxba ka bedeli mayno gorgortan la geli mayno iyo madaxweynaha la waxbaan dhirinaya iyo wasiirada la waxbaan dhirinayna halka ka dhirinaya idinka weydiiyay waasle shacbiga yaan waxaan jirin lagu hogin xalku yaala laakiin madaxweynuhu ma rabo xalku waxa weeye inuu doorashada waqtiga lagu heshiiyay ka dhigo oo commissionka u yeelo oo date la cayimo oo decree ku soo saaro saqdhaxa madaxweynaha caadada saqdhaxa soo saara decreetooyin lixda ka hal habeen soo saarina lixda ka habeen naga maqnayd ee aanu sugaynay hal habeen hadduu noo shaqeeyo saqda dhexe وين هالهبين معادي وهل ساعة وين هل ساعة معها ونص ساعة واسمه هاي صفر كعرقاوي حكينا وين بدك تتصارى ما انت عرقاوي اللي حكي غلط كيلومتر بيت ترتاح ساعة مصاصة لها صفر كيسو معنيه وحوي دورشو وضل كان كدع ميسو دورشو dalkan ka dhici mayso way fariina haday ka dhici weydo tabaha ku dhigto madaxweynuhu wuxuu waxaan ixtiraamaya heshiiskii aan la galay xisaabta iyo xukuumadda iyo qodobada aanu taa ma qabo madaxweynuhu waxaynu ogeyn markii aanu shirka bilaabi lahayn xafiiska wadani oo aan inqilaab ka jirin oo aan argagixisa soo gelin oo xisbi qaran leeyahay ayuu labaatan baabuur tiknika hordhigay ma dastuur buu ixtiraamaya ma sharci buu ixtiraamaya yaa awooddaasi maxaa ka socday xitaa qof waliba joogin waashmaankii baa joogay loo diiday inuu soo quraacdo ilaa duhurkii madaxweynuhuna waxba ixtiraamaynin oo aanu heshiis ixtiraamaynin oo aanu dastuur ixtiraamaynin oo aanu sharci ixtiraamaynin isaga maanta isku marag furay maxkamaddii xukuntay ee markii ugu horeysay xaqa xukuntay nimankii xukumay u wadeeriyey kaa waxaa iga tagan eri karayno baarlamaankii wuxuu u baahan yahay in la marmariyo marka waxay la tahay waxaa lagu xukumay oo lagu eriyey maxaa cadaaladda xukunteen taasi waxay ina tusaysaa in xukuumadduna cadaaladda ka dheer tahay waa arjuuq leh soo saas maaha golaha wakiilada runtii madaxweynaha waa la kordhiyey laakiin waxaan ummadda u sheegaynaa madaxweynuhu dee uu ka shaqeeyey in loo kordhiyo weliba hawlo kalena way jireen laakiin anigu muddo kordhintayda kamaan shaqayn marna
sinaa jarlay ku timi imakana ilaa 2013 waxaa la qeylinayo waxaa lahaa ha doorasho inoo qabtaan meesha ka tagee marka haddaan culays ku hay xukuumadda dee sidii kaga tegi lahaa may samaynin waxay ahayd inaan doorashada qabato anaa ka tago dee culayskii waa la joogayaa anna hadda waxba qaban weydeen sharciga lagu doortay markaan baarlamaanka geliyay 2005 uu yaala waa dhaqangal lama bedelin haddii loo baahan yahay wax laga bedelo waxaan ballan qaadayaa inaan baarlamaanka la keenayo markuu furmo wiiga ugu horeeya laakiin waxaan leeyahay madaxweyne adiga xukuumaddaadu ha ka shaqaynina in la is hortaago madaxweynuhu aad buu hanjabay baa laygu yidhi kelimad quraan leeyahay waxaan leeyahay wakiilaa sharcigaan ixtiraamayaayoo dastuurkaan ixtiraamayaayoo hanjabaad aan sharci ahayn oo dastuurka waafaqsanayn oo xeer waafaqsanayn waxay noqonaysaa mid madhan aan waxba ka jirin waxaan ku soo gebagabaynayaa madaxweynuhu wuxuu yidhi guddoomiyuhu wuxuu yidhi kuwayguna waa sharci ka madaxweynuhuna waa sharci darro waxaan leeyahay horta kuraasta qarankaa leh kelimadaana maan odhan laakiin hadda waxaa ku leeyahay si ay sharci u noqdaan kaaga iyo kayguba doorasho inoo qabo haddii kale aan bannayno madaxweynuhu wuxuu leeyahay aniga madaxweynaha anaa qaranka u sarreeya anaa lay doortay ninay doortay bay bedelaya intaasoo dhan waa ku ogolay madaxweyne laakiin haddaad doorasho ma diido sidee lagu bedelaya horta ma waa doorasho dadku ay kugu yimaadaan guriga laga soo saaro mashir beelaad baynu qabsannaa doorashada waa diiday ma tegaya baanu leedahay kursiga anaa ku fadhiya baanu leedahay bal xitaa waktina meeshigaad kusii fadhiyaysa balaa u qiyaasi lahayne goormaad ka tegaysaa goormaad doorashada qabanaysaa madaxweyne waxay la tahay weliba maanta waanu isdhowraynaaye waxay la tahay intaasaan ku soo gebagabaynayaa aad iyo aad baa umahadsan tihiin waxaan shirka u rajaynayaa inuu guul ku dhammaaday baan qirsanahay kuwa mishaarada meelaha wax la warwareegayaana waxaan leeyahay warkiina waxba kama jiraan shirkani markii hore qabraqar buu inaga ahaa ujeeddadii laga lahaa waa laga gaadhay waxaan shacbiga u sheegaynaa in shirarku aanay kan ku dhammayn kan kuma dhammaa mid weyne kumanaa qof ay ka soo qayb galaan oo talada lagu sii lafaguro oo wixii go'aanaa lagu sii dabagalo ayaan soo wadna shirkii kaasoo inoogu leeyahay